haboon daawadayaal meel walbo aad dunida ka joogtaan halkani waa Warsida TV qodobada wararkayga aad ku dheehan doontaanna waxa qayb ka noqonaya farmaajo oo madaxda warbaahinta madaxa bannaan ka hor qirtay in dawladdiisu gashay dambiyo waaweyn musharax Xasan Cali Khayro $100,000 ku bixinaya si joogitaanka ciidanka farsimaha ka sameystay Muqdisho Senator Cumar Cabdirashiid oo baaq ku aadan hanaanka qabsoomida doorashooyinka la wadaagay ra'iisul wasaare Roble dadaal lagu doonayo in dib loogu celiyo ciidamada farsimaha ka sameystay Muqdisho oo ka socda magaalada iyo cidda qorshahaasi hogaaminayso oo loogaday mid kamid ah gobolada dalka oo laga iibinayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare oo la soo bandhigay qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasiyad wararkayga ku dheehan doontaan haddii alla idmo intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkayga ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan farmaajo ayaa madaxda warbaahinta madaxa bannaan ka hor qirtay in dawladdiisu ay gashay dambiyo waaweyn madaxweynaha muddaxileedkiisa dastuuriga uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku casuumay qaar kamid ah madaxda warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay mar walba dawladda Soomaaliya dhowrista xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda iyadoo talaabooyin muuqda loo qaaday dhankaas taas oo tusaale ugu soo qaatay qiimeyntii sanadlaha ahayd ee 2020 ay ka sameeyeen ururada u dooda warfidiyeenka oo xaqiijiyay in dalka uu sameeyo horumar dhanka xorriyadda iyo xuquuqda saxaafadda dhankooda madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa madaxweynaha la wadaagay in lagama maarmaan tahay in dawladdu xaqiijiso xorriyadda iyo madaxbannaanida warbaahinta waxa ay sidoo kale gaarsiiyeen dhacdooyin iyo falal ay tabasho ka qabaan oo lagula kacay warbaahinta madaxa bannaan intii uu madaxweyne farmaajo xilka madaxtinimo ee dalka hayay taas oo ugu dambeysay warbaahin madax bannaan oo Muqdisho ka howlgasho maalmo ka hor ciidanka dawladda ay albaabada isugu dhufteen iyagoo codsaday in wax laga qabto arrimahaasi madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee farmaajo ayaa qiray in dawladdiisu ay qaladaad ka gashay warbaahinta madaxa bannaan sidoo kalena waxa uu sheegay inay u madax bannaan yihiin warbaahinta inay sheegaan dhacdo walba ka dhacda dalka balse ay muhiim tahay in dhacdooyinka loo helo cidda ay qusayso si warar isku dheelitiran ay shacabka ula wadaagaan warbaahinta madaxa bannaan Warsida TV ayaa daawadayaal wali la socotaan musharax Xasan Cali Khayro $100,000 ayuu ku bixinayaa si joogitaanka ciidanka farsimaha ka sameystay Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayro kana mid ah xubnaha midowga musharaxiinta kuwooda ugu mayalka adag aadna u hubeeya ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsiga Khayro ayaa $100,000 ku bixiyay hubka gaadiidka iyo saanada ay isticmaalaan ciidamada hubeysan kuwaasoo ku sugan xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayro ayaa sidoo kale $10,000 gacanta ka saaray taliyaasha ciidamada hogaaminaya ee markaasi hormuudka u ah taliyaashaas oo kala ah Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo gudoomiye ka ah degmada Daynina balse ciidankiisu ay farisimo ka sameysteen nawaaxiga isgoyska dabka gaashaan la sare Maxamed Maxamuud Qataatow iyo taliyihii hore ciidanka Danab Ismaaciil Gurey waxaana uu Khayro dhex dhigay saddexda taliye $100,000 si ay dawladda ciidamada taabacsan uga soo horjeestaan isla markaana ay u sii joogaan fariisimahooda Xasan Cali Khayro ayaa ka hor yimid dadaal nabadeed oo la doonaya in ciidamada dib loogu celiyo fariisimahooda waxa uu ciidamada ka dalbaday inay ku adkeystaan mayalkoodii isla markaana aanay ku qancin hadallada warbaahinta uu marinayo madaxweynaha waqti xileedkiisu dhamaaday waxa kale xusid mudan in Khayro uu aad u taageerayo ciidamada sida gaarka haybta dhow ula ah sida warbaahinta ay xaqiijinayso Senator Cumar Cabdirashiid ayaa baaq ku aadan hanaanka qabsoomida doorashooyinka la wadaagay ra'iisul wasaare Roble Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka horeyna u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hadlay sida uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ugu guuleysan karo inuu dalka ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah laguna wada qanacsan yahay Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay inuu guul uu Roble ka gaaro doorashada dalka ay ku xiran in marka hore dib u habeen lagu sameeyo madaxda hay'adaha amniga dalka maadaama uu shaki soo kala dhaxgalay saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada kadib dagaal ka dhacay Muqdisho Sharmaarka oo ka tirsan aqalka sare weligiisna aan ka soo qayb galin kulamada uu 4 sano la soo dhaafay yeeshay golaha uu ka mid yahay ayaa Xuseen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu u baahan yahay jawi xasiloon si uu ugu guuleysto waajibaadka culus ee loo igmaday siyaasiyiinta mucaaradka ayaa rumaysan in Roble wali uusan u madax bannaaneen go'aanada qaar waxaana ay ku booriyeen in si loo helo kalsooni buuxda uu u baahan yahay isbedelo uu ku sameeyo hay'adaha ammaanka oo ku milmay siyaasadda dalka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble inuu hogaamiyo geedi socodka doorashooyinka iyo qorshaha guud ee ammaanka qaranka inkastoo arrintaasi shaki badan laga muujiyay wali waxa shaqayn la ama
amarkii ra'iisul wasaare Roble ee ahaa in ciidamadu ay ka baxaan Muqdisho kuna laabtaan xeryahoodii waxayna wali labada dhinac isku hor fadhiyaan goobihii ay horay uga dagaalameen inkastoo magaalada amnigeedu uu xasiloon yahay isla markaana wax shaqaaqa aanay ka dhicin maalmihii la soo dhaafay balse waxaa la filan karaa in mar walba ciidanku uu dagaal dhexmaro maadaama ay wali isku hor fadhiyaan Muqdisho dadaalo lagu doonayo in militariga looga saaro magaalada ayaa socdo iyadoo la ogaaday cidda qorshahaasi hogaaminaysa magaalada Muqdisho waxaa ka socda dadaalo lagu doonayo in ciidamada xoogga laga saaro fariisimaha ay ka sameysteen Muqdisho kuwa oo dabayaaqadii bishii Abriil baneeyay fariisimaha ay ku lahaayeen gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ciidamadan ayaa si weyn uga hor yimid talaabadii uu golaha shacabka muddo kororsiga ugu sameeyay hay'adaha dawladda taasoo qasabtay inay baneeyaan fariisimaha ay kaga sugnaayeen Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ciidanka waxay haatan ku kala sugan yihiin degmooyinka Hodan Yaaqshiid iyo Kaaraan iyadoo ciidanka ku sugan degmada Hodan ay ka tirsan yihiin guutada 7aad ee qaybta 6aad halka kuwa ku sugan waqooyiga Muqdisho ay ka tirsan yihiin guutada 4aad ee qaybta 27aad ciidamada oo baneeyay fariisimaha ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa horkacaya saraakiil uu kamid yahay taliyaha guutada 4aad ee qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Korneel Sanay Cabdulla Gaab sidoo kale Faarax Xasan Xaashi iyo Liibaan madaxweyne ayaa horkacaya ciidanka guutada 7aad ee qaybta 6aad ee soo faarujiya saldhigga ay ku lahaayeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidankan ayaa gurmad ugu yimid hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii hoygiisa uu ku yaala degmada Hodan ay weerareen xogaga Haramcad iyo booliska gobolka Banaadir waxaana la fahamsan yahay inay ka hortageen howlgalkii ay dawladdu ku doonaysay in lagu soo xiro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah siyaasiyiinta ugu mayalka adag ee ka soo horjeeda farmaajo wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan oo xoojinaya baaqay ra'iisul wasaare Roble ee ahaa in ciidamadu dib ugu laabtaan xeryahooda ayaa ku baaqay in ciidamada laga saaro caasimadda Muqdisho wakiilka ayaa bartiisa Twitterka ku cadeeyay in Muqdisho ciidamo lagu kala qaybiyo aanay caawinaynin shacabka Soomaaliyeed wakiilka ayaa soo jeediyay in cid kasta oo doonaysa inay kaalin ka qaadato hanaanka doorashooyinka ay dalka loo baahan yahay in ay qayb ka qaadato sidii ciidamada ay uga bixi lahaayeen fariisimaha sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Muqdisho ayaa wada dadaalo ciidamada militariga looga saarayo magaalada iyagoona garabka mucaaradka ku cadaadinaya inay ciidamadu baneeyaan goobaha ay dhufaysyada ka sameysteen saraakiisha ciidamada militariga ayaa markii horeysa sheegay inaanay dib ugu laaban doonin xeryahoodii ilaa inta ay ka furmayo shirka wada tashiga qaranka ee dhexmari doona mucaaradka iyo dawladda taas oo loo baahan yahay in lagu meelmariyo hirgelinta doorashooyinka qaranka mid kamid ah gobolada dalka oo la ogaaday in laga iibinayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare sida aan wararka ku helayno waxaa maalmihii dambe magaalada Muqdisho joogay wafdi ka socda gobolka Gado kuwaasoo magaalada u yimid in ay qaadaan nuqul kamid ah imtixaanada shahaadiga dugsiga sare ee dalka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka waxaana la sheegayaa in si qarsoodi ah imtixaankaasi ay u iibsanayaan xubnaha Muqdisho jooga ee gobolka Gado u qaadaya imtixaanka dugsiga sare ee dalka waxa ay markaasi ujeedada ugu weyn ay ka leeyihiin ay tahay in ardayda gobolka Gado ay kaalmaha hore ka galaan iskuulada gobolka Gado iyo guud ahaan dalka mas'uuliyiinta ka tirsan wasaaradda waxbarashada dalka ayaa la sheegay inay u fududeeyeen helitaanka imtixaanka dugsiyada sare ee dalka taas ay ku iibsanayaan lacag aad u fara badan waxaana halkii maado laga siin doonaa qiimo dhan $1 waana arrin wanaagsan in lagu baraarugo isla markaana shacabku ay indho u yeeshaan sanadkii la soo dhaafay ayaa wasaaradda waxbarashada sheegtay in ardayda ugu badneed ee imtixaanka ku dhacay ay ahaayeen ardayda dugsiyada sare ee gobolka Banaadir taasoo markii dambe ay cadaatay in musuqmaasuq uu ka jiro dhanka wasaaradda waxbarashada sanadkii la soo dhaafay waxa imtixaanka dugsiga sare u fariistay in ka badan 11,000 oo arday ah oo dhammaan gobolada dalka marka laga reebo Puntland waxaana kaalmaha ugu horeeya galay gobolka Gado taasoo abuurtay shaki aad u fara badan warsida TV ayaa daawadayaal wali nagala socotaan safiirka Ingiriiska dalka Soomaaliya oo la ogaaday in safar qarsoodi ah ay ku tagtay magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska ee Soomaaliya oo uu wehlinayay madaxa xafiiska Ingiriiska ee Soomaaliland oo dalka u yimid safar shaqo kaasoo ah safarkii ugu horeeyay uu ku yimaado dalka maadaama safiirku cusub yahay madaxweynaha maamulka Soomaaliland waxa uu safiirka cusub uga xog waramay hanaanka dimuqraadiyadeed ee ka hanaqaaday Soomaaliland tan iyo intii ay ku dhawaaqday inay gooni ka tahay Soomaaliya inteeda kale isla markaana
ay tahay dowlad la jaar ah Soomaaliya waa sida Somaliland ay doonayaan isla markaana hadda ay ku tala jiraan qaabkii u heli lahaayeen ictiraaf buuxa caalamkana ay ka sugayaan inay Somaliland u aqoonsato dowlad ka madax bannaan Soomaaliya waxaana kulanka lagaga wada hadlay qodobo ay kamid ahaayeen xoojinta xiriirka labada dal arrimaha diyaar garowga doorashada Somaliland ee golaha wakiilada iyo deegaanka oo maalmo kooban inaga xigaan waxa kale oo kulanka lagu lafaguray deeqaha dalka Ingiriiska Somaliland ku taageero dhinaca mashaariicda horumarineed iyo arrimaha bulshada sidoo kalena waxa laga wada hadlay xaaladaha amni ee waqtigan ay ku sugan yihiin mandaqada Geeska Afrika safiirka cusub ayaa dhankeeda uga mahad celisay madaxweynaha maamulka Somaliland iyo shacabka Somaliland horumarka iyo dimuqraadiyadda nabadgelyada buuxda ay gaareen muddada 30 sano iyadoo sheegtay inay ku faraxsan tahay booqashada ay ku tagtay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland looga arrimiyo guud ahaan warkii oo daawadayaal kala socoteen warsida TV waa inaga intaan warkan warka xiga kulmi doono waxaan idinkaga tagay sidaa iyo nabadgelyo Ramadaanul Kariim